waataas alaabtiisaan ay kusoo baxday sida ujeedaanbo insha Allah sida u sameeyay iyo waxaan ka sameeyay waad arki doontaan haddii alla idmo. waa alaabtii dumarka qurxinta jirkaaga soo dad dumarnahay waa muhiim samahay inaan isqurxino inaan jirkeena daryeelno inaan nafteena jaanis siino soma waa sidaas haddii alla idmo insha Allah videoga bilow ilaa dhamaad ka bogo xaqiisana waa laga rabaa xaqiisa iska soo sii videoga xaqiisa waa just like iyo comment insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتك كحرين يوتيوب channel نفط أورون waxaan idin leeyahay soo dhawaada aad u mahadsantihiin insha Allah asxaabta hore noola joogtana sida mar walba ka dhawaajiyo waxaan idin leeyahay aad u mahadsantihiin kuwa cusubna waxaan leeyahay welcome Soomaaliya sida ujeedaan meeshan waxa uga jeedaan 5 waxyaabood oo alaabtii dumarka loogu talagalay la isku dhaqaayo la isku nuurinayo Soomaha soo hada dumarna jirkeena nadaafad u baahan yahay in laga warhayo u baahan yahay insha Allah hada guux iyo qayla ama maqlaysan sorry waxa waaye codka hadeertan ayaan saaraya insha Allah waxa waaye meeshan cusbur shumburo quse xulbad iyo huruud sida ujeedaanbo intan waxaan ku haysanaa saabuuntan hal xabe waxay iga caawinayaan saabuuntan waa soo hoolanaya haddii alla idmo waa lagu darayaa meeshan waxa ku haystaa timir aan soo radiyay dan wixii dhan waa ka bixiyay intan waxa igu jiro wax yar oo malab hadhoodiya isticmaali doona haddii alla idmo soo intan waxaan ku haysanaa caano oo adiga waxa waaye kala kan dhalo weyn waaye koobka shaaxiga adiga haafi koob iyo bar waaye hadaa wax kale u baahan dib uga darsanayna saliid oo saytuun meeshanito kan kareeman yar ku soo shubay oo nafaqada ku jirto ka dhamaatay soo iyo nafaqadanito ku darsanayna waa body scrub sida ujeedin bado alla idmo inta u baahanahay waa intaas insha Allah digsiga ku habeesan lahayna waa kana hado alla idmo soo saabuunta ayaan soo hoolanaya waan isku soo noqon doona insha Allah ta'ala haddaba sida ujeedin waa kana saabuunkiya soo hoolay waa soo diyaari saabuunka madowga maxaa waay inaan is dhiganayaa kulay saabuunta ma aha moogta kalarkeeda waa isticmaalkeeda saabuun fiican waaye ma sha Allah bariyana ay isticmaalaa bilahan dhowbo soo insha Allah sida ujeedin digsiga ayaan soo diyaariyay waxaana ku soo shubay caanihii timirtii ayaa ku daraya insha Allah caanaha marka hadda wuu igu yaraan doona hadhoodi balse dib malahan dib ayaa uga darsanay soo biyaha timirta ku qastanaha iska daadinin way ku anfacayaan waxa laga yaabaa inuu ka adkaado because time uu ku karo ay u baahan yahay Soomaha marka inuu biyo fiican uu helo soo caanaha hal bacdan aan ku shubayaa wali wax kale u baahana soo qiyaasta waxa la rabaa inay gacantaada aad la socodsiisid haddii alla idmo soo intana hayla yaabina waxaan gacanta ku qasaayo timirta saacado yar ay qasneed habeen dhan lama dhigin marka way yara adkayso waxa rabaa inaan gacanteeda ku jilciyo oon isdhexgeliyo intaanita marka isdhexgeliyo wixii kala u baahan oo hadirtan u baahan in lagu darna aan kadib ku daro wixii hadhow loo baahdan aan hadhow dib uga daro soo hadda waxaan ku daraa waa biyo timirta inkastoo ay ugu yaraayeen oo haaf iga daataybo soo dib malahan haafkana hadda ii haray intan ayaan ku qasaya insha Allah uu adag yahay wali fiican ayaan rabaa in isku dhexgeliyo hadaa rabtidna timirta caanaha kaliya dabka saaree soo marka labada dabka saarta cabaar ayaa dhaahday way is dhexgalaan kadib waxaan ku darsanay laakiin waxa laga yaabaa inuu caanihi ka yara guursado that's why marka anigoo wixii dhan dabka saaran aan rabaa in is dhexgeliyo haddana waxa ku darsada malabka qiyaasta rabtida ku darsana daartan waa ka dhaafi kartaa qasab ma ahan it's good just to fiican yahay intaan marka isku wada dartid jirka okay waa caanihi ayaan intii harta bacda ku harta ayaa kusoo dhiijinaya markaan kusoo shubo haddana waa si fiican ayaan isku sii dhexgelinayna haddii alla idmo si fiican ayuu ka rabaa Soomahan hada dumarna waa halayska shaqeeyo jirkeena qasab quruxu ilaahayna siiyay Soomaha waa in aan isku dadaalna waa inaan isqurxina hada dumar waa qurux la Soomaha waa ina
adiga le iska taxadartid naftaada. dabka ayaa saaray ma dareemaysiin oo yacni wuu adag yahay laakiin dabka wuu gaabiyo wuu taqtaqooyaa yacni taq oo tartiib usoo dhahaya arinayna arkaysin la because had saabuunta markaa ku daro hore ayuu ka milmayaa sida ujeediinbo hore ayuu ka dhexgalaa soo wuu daaran yahay dabka laakiin waa dab aad u gaaban aad u hooseeyo insha Allah soo dabkaas aad u hooseeyo ayaa ku maxaa la dhahaa ayaan ku karinaynaa haddoo alla idmo waxaan ku soo darsaday caagi oo igu jira kareemo yaryar iyo malab yar oo asigana haray iyo nafaqo yar oo hartay iyo kareen caadi body lotion hadaa rabto ku darsan kartaa hadaa rabto ka digi kartaa because saliida ayaa booskas buuxinayso malabkana waa ka dhaafi kartaa oo dhib ma lahan hadaa ka dhaaftid marka waxaan u baahan yahay xoog iyo inaad si fiican iskugu qastid oo si fiican isku dhexgelisid haddoo alla idmo shaqo ayuu u baahan yahay soo ujeedaa soo taqaada fiiriya هو نواد كأنه يسعى وتقطقايا ترتيب وتقطقايا كاميرا ماشي إنا دمية وملايي waxaan u doontay caanihii ay dhamaaday adeegan ka dareemso bac kaleeta bacdiyaan u soo dhaqay kisto caano ku jirtay soo markaa wax yar biyo ku soo daray ujeedaa wuu isdhexgelina xoog u kaaraba xoog inaa walaaqdid si aad u xoog inaa u walaaqdid waaye soo waa inaa isdhexgelisid oo ka shaqaysid soo marka hadda waxaan inoo dhiman inaan kusoo darsano doo alla idmo aadan arkina waa nafaqadii iyo biyaha iskaga soo darsada xoogaa biyihii ayaa ku yaraaday dhib ma lahan yacni cabirka gacantaada ayaa la rabaa soomahan inaa mar walba aa walaaqdid waa sidii soortoo kaleeto mar walba walaaqdid dee aragti inay adag tahay wax yar biya ku darsanayso wax yar biya korka uga soo daray wixii caanaha waa iga dhamaaday biyo timirtana waa iga dhamaaday soo biyo caadi ku soo dar hadda la qiyaasta okay iyo noqotay inta ka rabo waaye diyaar marka insha Allah inta dhimanna waxa waaye hada daawada u jeeda sidoo taqtaqay tartiib ayuu taqtaqayaa dabka never ha ku dheereen because dab yar aa loo baahan yahay inuu ku karo si edeb oo degan ya insha Allah sas ula socda asxaabta quruxda badan waxaan idin leeyahay insha Allah nasoo dhaweey bariyahan lama arkay like ta commentiga asxaabtaada la wadaag qofkii u baahan la share garay videoga meesha uga tagin inta daawatida ku dhayaa la ordan ku dheh ka gaarsiyo qofkii u baahan qofka u baahneen kulli u share garay asxaabtaada dhan kulli qof baa wax ka faa'iido doono samaha cilmiga Ilaahay ku bare cilmiga Ilaahay ku bare waa inaa uga faa'iideysid dadka kugu xiran ama dadka walaalahaaga waxa ku soo darsada nafaqadii ama body scrubs oo taqaaniin aan ku soo darsada insha Allah waxa ku soo darsanaya saliidii wax kale nooma harin wixii kale dhan waa isku soo darnameen oo soo wada qasnay saliid ayaa ku soo dara ka bacdina shaqadii ugu darneeda ku dhaay because waa sida xalwado kale saliidii in si fiican loo dhexgeliyo u baahan yahay inay saliidda si fiican loo dhexgeliyo xoog loogu walaaqo waaye ilaa isdhex gasho marka ina xoog walaaqda xoog زائد هو باهين كل شقة وشقة والله بالله علابت نبقى لك مرايو يدفت هذا اسم الله يا لكن والله ما شاء الله مركزان وكلا هدا أو هجاجتيد وكلا عاك كشوبتيد وفريج كشتيد مركز تأجرك وقبيستيد ما شاء الله كلها نظيف عجب قروح هذا يسكبك بقي يصدرك لما حنقنا يا سموث معان ونقنا soo waxa idinka iloobay oo videoga qaybtiisa hore ayuu ku jiray waxaan ku soo darsaday shaambada oo jirka lagu dhaqo ayadana ayaan ku soo daray waxaan ugu soo daray maxaa la dhahayo saabuunta ayaa dareemay inuu because waa ina fiirso maaha marka jirka wax yara jirka sii mariyay saabuuntii inay oo saabuun fiican lahayn ayaan ka dareemay soo shaambadaas ayaa ku soo daray si uu hadhowdi jirkaaga ugu dhegdhegnaan ma jecel inuu hadhow ugu dhegdhego because hadduu shaamba leeyahay iyo body washka ama saabuun fiican leeyahay
marka jirka ku rugto wasaqdi kaaga oo hadhow marka ka qubaysanaysid caadi la isku raacsiinay uma baahanaysid saabuun kale ama shaamba kale waa wixii dhan oo iswato waa moisturizing waa body washki waa body scrubki yani scrubki waa jirki waa ku rugto wasaqdi ka baxday moisturizing waxa waa saliidihii uu watay kareemyada iyo maxaa la dhahaa timirta oo jirki ay qoye maxaa la dhahaa moisturizing u taa jirka ay qoye waxaa kale ku soo haray maxaa la dhahaa scrub iyo maxaa body scrub iyo body maxaa la dhahaa body wash body washna waa shaambada. It's okay afkaan oo gambiye insha Allah. Bye bye.